السلام عليكم saaxiibayaal kusoo dhawaada Muscab Rikaab maanta waxaan idin sharxi doonaa filim xiiso badan kaasoo ah qiso dhab ah laguna magacaabo The Boy Who Had Nested the Wine filimkina waa kan ee daawo oo taxadar filimku wuxuu ku bilaabanayaa koox dada kuwaasoo beer ka guranaya dalagyadii ay beerteen waxayna ku guranayaan saladihii ay wateen caruurtan waxay ahayd beerta dhexdeeda kuwa ku ciyaaraya koox si ay waqtigooda ugu raaxaystaan intaa kadib waxaynu arkaynaa ninkan oo lagu magacaabo John wuxuu dareemayaa xanuun daran isla markaana wuxuu ku dhacayaa dhulka wuuna dhimanayaa intaa kadib dhammaan dadkii ku noolaa tuuladu waxay isugu imaanayaan aaska John ninkan oo ka qudbadaynaya xabaashana wuxuu waalidka iyo caruurta John qancinaya inay tahay tani qadar eebe isla markaana wuxuu niyada u dejinayaa iyaga Taraywal oo ah walaalka John iyo wiilka John Jeremiah ayaa ka murugaysan geerida kadiska ee ku timi John waxaana labadooduba u taala shaqadii uu ka tagay John taasoo ah inay beertaan beertan dhanka kale William oo ah cunuga Taraywal ayaa isku dayay inuu hagaajiyo raadiyaha Taraywal ayaa weydiinaya wiilkiisa inuu hagaajiyo raadiyaha balse wuxuu u sheegayaa inuu wali samaynayo oo uu wado Taraywal ayaa iskaga tegaya wuxuuna u imaanayaa gabadhiisa oo lagu magacaabo Annie wuxuuna weydiinayaa waxa ay la murugaysan tahay waxayna ugu jawaabaysaa hurdo la'aan ayaa haysaa talumay jiran tahay mise jacayl baa haya Taraywal xaaskiisa ayaa u dhiibaysa dirays ay ugu tala gashay wiilkeeda William waxayna u sheegaysaa inuu kaga dhigo surprise William ayaa arkaya dirayska saaran sariirtiisa wuuna ku farxayaa isla markaasna wuxuu u diyaar garoobayaa inuu aado iskuulka William wuxuu u soo dhaqaaqayaa dhankaas iskuulka isaga iyo saaxiibkii Gilbert waxayna lugaynayaan wadada dhanka kale Annie waa gabadh madax adag oo dhageysanaysa hooyadeed Agnes maamada ayaa la sheekaysanaysa dumar kale kuwaas oo ka waran gabadh ka mid ah tuulada oo ay reerkoodu ku caawiyeen inay shaqo ka hesho wasaaradda beeraha Agnes waxay gabadheeda u sheegaysaa inay iyana heli doonto shaqo fiican kadib markay dhammayso jaamacadda Taraywal iyo familkiisa oo lugaynaya wadada ayaa waxaa soo hormaraya nin labisan oo wata baaskiil wuxuuna eegayaa Anina waxay ka dhacaysaa aabaheed iyo hooyadeed ninkanina wuxuu imaanayaa iskuulka wuxuuna soo galayaa fasalka wuxuuna ardayda u sheegayaa inuu yahay macallinkooda sayniska wuxuuna sidoo kale u sheegayaa in la yiraahdo Master Kachikunda kadib marka uu dhaco gambaleelku wuxuu William u dhiibayaa macallinka warqad ka socota walaashiis sidoo kale macallinka ayaa u sheegaya inuu William bixiyo lacagta fiiga haddii kale ma sii wadi doono dugsigan William oo ah arday dadaal badan ayaa isku dayay inuu diyaariyo casharada iskuulka balse uma suurtagelayso taasu sababtoo ah waxa dibadda ka da'ay roob xoogan familka William oo ah qoys danyar ah aawadeed ma haystaan wax iftiin ah oo guriga dhexdiisa subaxda xigta William iyo saaxiibkii Gilbert waxay helayaan natiijada waraaqaha imtixaankooda William iyo Gilbert waxay jecel yihiin inay wax ku soo kordhiyaan iskuulka si ay taasi ugu suurto gashana waxay tagayaan deyrka qashin qubka si ay uga helaan wax anfaca iyaga waqtiga xiga William ayaa saaxiibkii Gilbert u raacaya gurigooda kaasoo uu yimid wafti ka socda shirkad waftigan ayaa u sheegaya dadkan inay beertooda ku bedeshaan lacag Taraywal iyo qaar la mid ah uma malaynayaan inay tani tahay fikrad wanaagsan balse Jeremiah ayaa u saxiixaya kooxdan heshiiskooda taas oo uu ku doodayo inuu u baahan yahay lacag Jeremiah iyo Taraywal kadib markay yimaadaan gurigooda waxay ka wada hadlayaan arrinkan wuxuuna Jeremiah ku adkaysanayaa inuu u baahan yahay lacagtan balse Taraywal ayaa u sheegaya inuu iska daayo khamaarka oo uu kaydsado lacagta Jeremiah ayaa u sheegaya Taraywal inay beertiisa ay baabiyeen roobabku qof walbaana uu galay khamaarkan dhanka kale William iyo saaxiibkii Gilbert ayaa soo aadaya maqaaxida iyagoo ka dhageysta ciyaaraha raadiyowga si kadisa raadiyaha ayaa xumaanaya qof walbaana wuxuu soo eegayaa William in uu hagaajin karo raadiyowga William wuxuu u soo cararayaa dhankaas gurigooda wuxuuna aabihii Taraywal weydiinayaa inuu ka bixiyo kharashka iskuulka si aan isaga looga soo baacin Taraywal ayaa u sheegaya inuu ka bixin doono kadib markuu roobku istaago oo ay beertu bilowdo inay soo saarto dalageeda William wuxuu la baxayaa xanjaarta ama bayteriga raadiyaha wuxuuna soo aadayaa maqaaxida si dhaqso uu hagaajinayaa
qof walbaana waa mid ku faraxsan shaqada uu William qabtay. Waqti yar kadib, William iyo Gilbert waxay soo aadayaan guryahoodii, waxayna wadada ku arkayaan William walaashii Annie oo dhunkanaysa macalinkoodii. La wadna xanuun weyna. Subaxda xigta, William iyo Gilbert ayaa isku afkartay inay jabiyaan baaskiilka macalinkooda si uu u dhexlugeeyo tuulada. Waxayna yimaadeen iskuulka. Si kadisa William ayaa arkay toosh ku xidhan xagga hore ee baaskiilka, wuxuuna ogaaday inuu shidmayo tooshka marka uu dareemo baaskiilku cadaadis. Si kadisa maamulaha ayaa u sheegaya William inuu iskaga tago iskuulka maadaama uusan bixin lacagta fiiga ee iskuulka. Subaxda xigta, William wuxuu si dhuumasho ah ku imaanayaa iskuulka. Kadib markay galaaska ka baxaan dhammaan ardayduna, wuxuu William soo galayaa fasalka. Wuxuuna macalinka Kachagunda weydiinayaa wax ku saabsan iftiinka baaskiilka. Wuxuuna macalinku u sheegayaa inay tahay diinamada. Wuxuuna sidoo kale weydiinayaa William macalinkiisa sida uu u samayn karo toosh. Kachagunda ayaa u sheegaya inuu maktabadda iskuulka galo, balse William ayaa u sheegaya inaanu haysan kaarka maktabadda. Kachagunda ayaa fahmaya inaanu William bixin lacagta fiiga iskuulka. Si dhaqsa, William wuxuu u sheegayaa inuu qarinayo sirta macalinka iyo walaashiis ka dhaxaysa, taas oo uu isna doonayo inuu qariyo macalinku. Macalinka ayaa keenaya maktabadda, wuxuuna u sheegayaa shaqaalaha maktabadda inuu la shaqeeyo William. Sidoo kale wuxuu u sheegayaa inuu ku tijaabin karo dhammaan fikradihiisa maktabadda dhexdeeda. Dhinaca kale, waxaa imaanaya tuulada madaxweynaha, waxaana bannaan baxaya dhammaan dadkii tuulada deganaa. Caaqilka tuulada ayaa u sheegaya dadka inay doortaan madaxweyne aan iska indho tirin dhibaatada dadka haysata. Caaqilka oo hadalkiisa wata ayaa bulshada ku dhiirigelinaya inay doortaan madaxweyne ayaga iyo beertoodaba anfacaya. Si kadisa, ilaalada madaxweynaha ayaa kaxaynaya caaqilka, wayna garaacayaan isaga. Dhinaca kale, faamilka Taraywal ma haystaan dalag ku filan iyaga si ay u iibgeeyaan. Qiimuhuna wuxuu ahaa mid tiro badan. Taraywal wuu xanaaqayaa, isla markaana wuxuu doonayaa inuu ku biiro koox mudaharaadayaal ah si uu ugu tago madaxweynaha, isla markaana uu cadaadis u saaro isaga maadaama ay beertiisu u baahan tahay daryeel daawo. Xaaskiisa Agnes ayaa ka codsanaysa inuu la joogo qoyskiisa, balse wuu iska indhatirayaa, wuuna ku gacan saydhayaa, isla markaana wuxuu raacayaa kooxdii. Dhanka kale, Annie waxay la kulmaysaa Kachagunda, wuxuuna u sheegayaa inay wax qaldan yihiin oo ay ka tagto tuulada maadaama uu cabsi ka qabo walaalkeeda William oo ogaaday arrinkooda. Dhinaca kale, waxaa yimid laba baabuur oo wada hadhuudh, isla markaasna dhammaan dadkii tuuladu waxay ku yaaceen baabuurtii. Agnes ayaa William siisay dhammaan lacagtii guriga taalay, waxayna u sheegtay inuu soo iibiyo hadhuudh inta uu awoodo. Intaa kadib, tuug ayaa soo galay guriga Agnes, wuxuuna qasab kaga qaaday dalagii ay Annie soo gurtay. Si isku xigtana waxaa guriga ka soo yaacay niman fara badan oo tuugo ah, kuwaasoo wata dhammaan dalagii reerka u yaalay. Agnes waxay ku dhigtay mid ka mid ah, balse wuu ka baxsaday. Dhanka kale, dhammaan dadkii sugayay hadhuudhka markay soo gaadhaan baabuurtii, waxay arkayaan hadhuudhkii oo la dhameeyey iyo baabuurtii oo madhan. Dadkuna waxay baabuurtii u soo dabakacayaan xafiiska si ay u helaan hadhuudh, balse saraakiisha ayaa u sheegaysa inaanay qaybin doonin maanta wax hadhuudh ah. Dadkuna waxay u yaacayaan xaggaas iyo bakhaarka uu raashinku yaalay. William oo ay u suurto gashay inuu galo bakhaarka ayaa soo iibiyey 15 kiilo oo hadhuudh ah. Dadkuna waxay ahaayeen kuwo dibadda ku sugaya, balse waxaa la xidhay bakhaarkii, waxayna bilaabeen mudaharaad. Intaa kadib waxaa loo sheegay inay iskaga tagaan meesha. Dhanka kale, William ayaa arkay jiingada oo ka daloosha meel, wuxuuna ka codsanayaa nimankii inay caawiyaan si uu dibadda ugu baxo. Nimankiina waxay bilaabeen inay gooyaan jiingada, wuxuuna ka soo tegay meeshii isagoon cidina dhibaatayn. Dhinaca kale, Taraywal iyo asxaabtiisii kale waxay ku soo noqdeen tuuladii. Faamilkuna waxay ahaayeen kuwo ku kulmay guriga, wuxuuna u sheegayaa inay jirto abaar xun, sidaa awgeed ay cunaan maalintii hal nooc oo cunto ah oo u soo go'day iyaga. Taraywal ayaa sidoo kale u sheegaya inay u baahan yihiin cuno dheeraad ah, waayo intan waxay ku filan tahay 2 maalmood oo keliya. Balse nasiib xumo, xilliga oo adag awgeed suurtagal maaha midho in la beero isla markaasna la goosto. Taraywal ayaa damcay inuu tukado roobdoon, balse Agnes ayaa ka celinaysa, misna u sheegaysa inuu jabinayo mid ka mid ah xeerarkii ay dhigteen ka hor guurkoodii oo ah inaanay roobdoon tukan. Arqoftaana caadi maaha. Waxayna sidoo kale u sheegtay inuu jabinayo dhaqamadii awoowayaashood. Habeenka xiga, William ayaa walaashii albaabka ku garaacaya, wuxuuna u sheegayaa inuu og yahay inay wada socdaan iyada iyo Kachagunda, wuxuuna ku dhiirigelinayaa iyada inay macalinka uga soo qaado daynabada baaskiilkiisa ku xidhan, taas oo uu ka dhalin karo biyo ay ku waraabsadaan beerahooda halkii uu ka ducaysan lahaa.
lahaa si ay u helaan dalagyo fiican. Subaxdii xigtay, William wuxuu ka fikirayaa sidii uu uga howlgeli lahaa fikradiisa. Dhanka kale, Agnes ayaa helaysa warqad ay qortay Annie, waxayna iyada iyo Travel ku qaylinayaan waxa ay samaysay Annie. Si dhaqsa Annie waxay u tagaysaa gacaliyaheeda, wayna la baxsanaysaa. Hablo, iyadoo familkiinu ku jiro xaaladan adag, misna lagugu qabto arrinkan, ma ka raaci lahayd jacaylkaaga reerkiina? Aan u laabano filimkeena. Familka ayaa William weydiinaya inuu arkay Annie, balse waxba kama oga. Dhanka kale, William iyo Travel iyo Agnes waxay isku soo raaceen iskuulka, waxayna maamulaha weydiinayaan wax ku saabsan gabadhooda, balse wax shaqo kuma laha isagu arrinkan. William ayaa u sheegaya maamulaha inuu u ogol yahay inuu galo maktabadda, maamuluhuna wuu u fasaxayaa. William wuxuu akhrinayaa buugaag ku saabsan sida tabarta loo dhaliyo, wuxuuna saaxiibadii la wadaagayaa inay u baahan yihiin inay helaan marwaxad dabaysha ka dhalinaysa dabka. Wuxuuna samaynayaa tijaabo yar, taasoo ay marwaxadu dhaqaaqayso marka ay dabayl soo gasho guriga, isla markaana ay daarayso raadiyaha. William ayaa aabihii u imaanaya, wuxuuna u sheegayaa tijaabadiisa. Sidoo kale wuxuu u sheegayaa inuu u baahan yahay baaskiilkiisa, kaasoo uu rabo inuu u isticmaalo qaybo ka mid ah korontadan. Aabaha ayaa ku xanaaqaya wiilkiisa, wuxuuna u sheegayaa inaanu mar dambe ku riyoon riyooyinka noocana. Sidoo kale wuxuu u sheegay inuu berri waqti hore seexdo si uu berri xilli hore u soo kaco, isla markaana uu falo beerta. William wuxuu u soo laabtay saaxiibadii, wuxuuna u sheegay inuu caawimaad u baahan yahay, balse iyagu waxay u diyaar garoobayaan safar, kaasoo ay iskaga tegi doonaan tuuladan iyagoo rajaynaya riyo fiican. Balse William ayaa ku qanciyay inay u suurto galayso fikirkiisan, wuxuuna u sheegay inuu u baahan yahay baaskiilka aabihii. Waxayna si wada jir ah ugu yimaadeen aabaha, balse nasiib darro kamuusan ogolaan isagu. Agnes ayaa iyana furanaysa buug cabasho, taasoo ay Travel uga sheegayso inay isaga daraaddii ay weyday waalidkeed, sidoo kale ay weyday dalagii beerteeda, iminkana ay la'dahay gabadheedii. Sidaa daraaddeed waxay u sheegaysaa inuu wiilkiisa siiyo baaskiilka. Travel ayaa go'aansaday inuu wiilkiisa siiyo fursadaas, waxayna jarjarayaan isaga iyo saaxiibadii baaskiilkii. Sidoo kale dadkii tuulada qaar ka mid ah ayaa caawinaya, waxayna la taagayaan alwaaxyo oo uu isku xidhxidhay William. Dabayshu waxay ahayd mid xoog badan, waxayna dhaqaajisay marwaxadii. William wuxuu u sheegay inuu baytarigu u baahan yahay waqti si uu u soo saaro biyaha ceelka. In yar kadib baytarigii wuu dhaqaaqay, wuxuuna soo tuuray biyihiisii ugu horreeyey. Biyuhuna waxay ahaayeen kuwo qulqulaya, qof kastaana wuu faraxsan yahay, wuxuuna qof walba qodayaa kanaaladii engegay si ay biyuhu u maraan. William iyo hooyadii Agnes ayaa si raaxa leh u daawanaya wax soo saarka William. Dhanka kale, Travel ayaa wiilkiisa ku dhiirigelinaya inay macquul tahay inuu scholarship helayo. Beertiina waxay bilowday inay soo baxdo. Dhinaca kale, waxaa tuuladii ku soo noqday Annie iyo Kachigunda. Annie ma aysan gelin jaamacad, balse iminka waa hooyo leh 4 carruur ah. William ayaa isaguna helay scholarship, wuxuuna u aadayaa dalkaas iyo Maraykanka. Filimkeenuna sidaas ayuu ku dhammaaday. Fadlan hadday tahay markii kugu horreysay ee aad soo boqoto channelka, nagu soo bir oo taabo subscribe. Sidoo kale haddaad ka heshay muuqaalka like saar si uu u gaadho dad badan. Saaxiib, waad ku mahadsantahay daawashada filimkan. Inta aynu ku kulmayno muuqaalka xigana, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.